abwaan jirdaalaale oo ka mid ah abwaanada ruuqcadaaga ee gobolka saaxil oo maanta markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ay dalku halka ay maanta marayso isagoo abwaanku sidoo kale tilmaamay inay luntay majarihii siyaasadda Soomaaliland ee waqtigani waxaana uu abwaanku sidaasi ku sheegay mar uu maanta wareysi khaas ah oo uu siiyay TV-ga madaxa bannaan ee Bulsha TV isagoo wareysigani kaga waramay dhaliilooyin kala duwan oo uu soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland waxaana uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay soo celiso masiirkii ummadan iyo shacabka reer Soomaaliland sidoo kale waxa uu abwaanku xusay inay Soomaaliland hadda u baahan tahay inay talada u qabtaan halgamayaashii SNM oo uu tilmaamay Mujaahid Muuse Biixi iyo Mujaahid Maxamed Kaahin iyo sidoo kale Mujaahid Maxamed Ibrahim Xasan Dhagaweyne waa kan abwaan jirde isagoo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlaya abwaan jirde awlaala qaasaalin oo abwaan weyna oo saxafiya waxa aanu dadkii aynu weydiinayaan inay leeyihiin dalkii iyo dadkiiba waa baqti marka waxa aanu doonaynaa inay noo soo noqdaan halgamayaashii SNM oo ka mid ahaa ina Biixi oo ka mid ahaa ina Kaahin oo ka mid ahaa ina Mire oo ka mid ahaa Dhagaweyne raggii baanu doonaynaa inay dib ugu soo noqdaan in xoreeyay dalka markii aanu ogaanay in dadkii iyo dadkiiba baqtay marka hadii jeer waxayna weydiiyaan maxay halkay maraysaa waxa weeyaan muqaddas weeyaan xukuumadda reer Soomaaliland dib loogu noqon maayo sidii ay loogu baaqay ayay ahaanaysaa qodobka reer koonfureedka waxaan leeyahay kor haddii dareenkii dadkii koonfur wada diiday diirka madow iyo ummadda dariisu mooyaane oo aanay dibuhu naga xadeen xamar la doonaynin deeqda ilaahay iskala ducaana weeyaan waa dowladda Soomaaliland loo dagaal daadan kaga bilaabiyo miyaan diirkii ka higaatay ma dareeyay dirqaafku waa ka dilaa gabay fuluus kale waa idin soo sidaa si yadagii waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland meel kasta ha joogeen waxa la doonayaa dadkii silta nolosha yaqaanay ee halgamayaasha ninku haddii silta nolosha aanu garanaynin waxba ma qaban karo waxa weeye ninku waa inuu gartaa qofku inuu halkii ku noolaan lahaa halkii uu ka shaqayn lahaa nabadgelyadiisii qofka haddii waa ma jiro ummadii reer Soomaaliland waxba baqaysa waddankeeduna waa qani wadadii loo maray lahaa dad baa hortaagan waxaan doonaynaa inay u soo noqdaan halgamayaasha ayaa ay leeyihiin isagoo sidoo kale abwaanku tilmaamay xukuumadda looga baahan yahay inay daboosho baahiyaha bulshadooda walow ayna wada dabooli karin balse ay dadaalkeeda intaasi kasii kordhiso Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera.